galab wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa maalin khamiis ah bisha afraad ay tahay 23 sanadku waa 2020 goorsheegtu waa 5tii galabnimo oo goowa wararkaanu maalinkan maanta idin haynana waxaa ugu mudan murankii u dhaxeeyay dhinacyada siyaasadda ee Jubbaland oo maanta heshiiyey muxuuse heshiiskaasi ka dhigan yahay heshiiskan wuxuu ka dhigan yahay waa heshiis taariikhi ah wuxuuna ka dhigan yahay in Jubbaland ay ugu dambeys ka dhacday nabad lagu waaro oo rafayn ah oo u horseeda isbedel dhaba oo ka dhacay Jubbaland iyo Soomaaliya inteeda kale Somaliland oo gabi ahaan ku dhawaaqday inay qaadkii joojisay kiisas cusub oo fayraska corona ahna sheegtay haddii se qaad soo galo maxaa dhacaya cidkii lagu arko in jaad ganacsi soo gelinayso in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qarniyo la wareegaan jaadkana maalinta laga bilaabay in la gubo xaaladda dhaqaale ee cakiran ee corona dunida badaya halkee Soomaaliya kaga jirta wasiirka maaliyadda noo warramay barnaamijkaad ku maqli doontaan iyo xogtii u dambeysay ee wararka corona virus waxa kale oo aan meesha ka maqnayn oo aad maqli doontaan adudugato gilqabo madadamiyo geeda wugadaasha dhultaay ana cudurkanigu dhacay waa barnaamijkii gaarka ah ee muusiga salaamaha aad maanta oo kala dhagaysataan oo heesahaas iyo kuwa kale oo lagu lamaanaysiiyay hambaliyada iyo tahaniyadaha diraysaan aad qaybaha dambe ku maqli doontaan barnaamijka waxaa wadajir soo saaray xasan sheekh cumar iyo samiira cabdullaahi jaamac waxaana cabdiraxmaan cali dhimbiil ee dhagaystayaal galab wanaagsan qodobadaas oo fidsanay way noo dambeynayaan sida aad nooga barateen aynu ku horreyno wararkii caalamka oo xasan geelle oo hoygiisa ku sugan inoo hayo xasan mahadsanid cabdiraxmaan dalka maraykanka 4.4 milyan oo qof oo Amerikaan ah ayaa usbuucii la soo dhaafay oo kaliya codsaday kaalmo dhaqaale maadaama ay shaqo la'aan ku dhacday arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hore ay dalkaasi kaalmo noocaasi ah u dalbadeen 22 milyan oo qof tan iyo markii ay bilaabatay xasarada ka dhalatay cudurka xasan cali geelle khadka iyo marsi horeysayna natiijada sahan dhanka ganacsiga ah oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in wadamada reer Yurub iyo Britain ay aad ugu liitaan sidii hore loo saadaalinayay waxayna xogtaasi muujinaysaa in dadka shaqo la'aanta ay ku dhacday bishan oo kaliya ay ka badan yihiin sanadadii 1990yadii sida xogtan lagu sheegayna waxa aad u burburay wax soo saarka warshadaha iyo adeegyada kale maareeyaasha shirkadaha ayaa arrintaasi u aaneynaya cudurka COVID-19 iyo xayiraadihii ka dhashay cudurkaasi kuwa oo hoos u dhigay wax soo saarka shirkadahaasi isla markaana sababay shaqo la'aan hogaamiyaasha reer Yurub ayaa haatan yeelanaya kulan maqal iyo muuqaal ah xilli ay la daaladhacayaan sidii loo xakameyn lahaa dhibaatada ka dhalatay cudurka COVID-19 hogaamiyaashan ayaa la filayaa in ay saxiixaan kaalmo dhaqaale oo gaaraysa 500 oo bilyan oo euro oo lagu barataarayo dhaqaalaha reer Yurub balse waxaa jira muran ku saabsan sidii dhaqaale loogu bixin lahaa dib u kabashada dhaqaale oo intaa ka baaxad weyn wadamada uu cudurkan aadka u saameeyay oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ayaa waxa ay doonayaan in wadamada midowga Yurub ay ururiyaan qaaraan intaasi ka badan oo ay deyn wada qaataan arrintaasi waxaa ka soo horjeesaday wadamada sida Netherlands, Austria iyo Jarmalka hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyada taageersan qorshahan ah in Jarmalka uu dhaqaale badan ku bixiyo miisaaniyadda reer Yurub si gacan looga geysto dib u kabashada dhaqaale ee reer Yurub marsi horeysayna waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay in go'aanka lagu xadidayo xorriyadda shakhsiga uu ahaa midkii ugu adkaa ee soo mara muddadii ay xukunka dalkaasi haysay hadalkeedina waxa ka mid ahaa waxaan ku xaqiijin karaa in uusan isoo marin go'aan ka adag midka lagu xadidayo xorriyadda shakhsiyaadka waxaan ka xumahay in carruurtu aysan la kulmi karin saaxiibadooda iyo sidoo kale in dadku aysan isu tegi karin isla markaana inta isla joogta ay masaafo isu jirsadaan und immer auf den so wichtigen Mindestabstand achten müssen. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay suurtagalnimada in tirada dadka wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha ee u dhimanaya cudurka duumada ay laba jibaarmi doonto sanadkan sababo la xiriira cudurka COVID-19
xog ay diyaarisay hay-addan ayaa muujinaysa in ku dhowaad 760,000 oo qof oo ku nool wadamadaasi ay u dhiman karaan cudurrada ay kaneecada keento. waxay intaasi ku dartay in xiritaanka xuduudaha iyo xayiraadaha dhanka safarka ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19 ay waxyeeleyn karaan sidii wadamadaasi loo gaarsiin lahaa dawo iyo marakaneecooyinka sunta lagu buufiyey ee looga gaashaamanayo kaneecada. 2 nin oo looga shakisan yahay in ay xubin ka yihiin laamaha ammaanka dowladda Suuriya ayaa maxkamad lagu soo taagay gudaha dalka Jarmalka, waana markii ugu horeysay dunida oo dhan oo shakhsiyaad loo maxkamadeeyo jirdilka iyo tacadiyada dowladda madaxweyne Bashar al-Assad. 2 nin oo la soo taagay maxkamad ku taala Koblez waxaana lagu eedeynayaa dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. mid ka mid ah raggaasi oo magaciisa lagu soo koobay Anwar ayaa lagu eedeeyay dilka 58 qof iyo mas'uuliyadda jirdil ka dhacay xabsi ku yaal magaalada Dimashq oo loo geystay 4,000 oo qof. ninka labaad ayaa lagu eedeeyay inuu xirxiray dad dibadbaxyo dhigayay. ninkaasi ayaa markii maxkamadda la soo taagay waxa uu funaanadiisa ku qariyay wejigiisa. raggani ayaa dalka Jarmalka soo galay iyaga oo magangelya doon ah. ugu dambeyntiina safiirka dalka Shiinaha u fadhiya magaalada London ayaa warar been abuur ah ku tilmaamay eedeymo sheegayay in dalkaasi Shiinaha uu ka been sheegay xaaladda dhabta ah ee cudurka COVID-19. Li Xiaoming ayaa sheegay in dalkiisa uu xaqiiqada ka sheegay cudurkaasi isla markii uu dalkaasi ka dilaacay cudurkaasi. waxa uu sheegay in la is eedeeyo iyo in marmarsiyo la raadiyo aysan waxba soo kordhinayn. wuxuuna intaasi ku daray in jaahilnimada qaar ay sii xumaynayso iskaashiga u dhexeeya wadamada. madaxweyne Trump ayaa dhowr jeer oo hore Shiinaha ku eedeeyay cudurkan oo ka soo bilowday magaalada Wuhan, waxaana jirta haatan in mid ka mid ah gobolada dalkaasi Mareykanka uu dacwad ku soo oogay dowladda Shiinaha arrimo la xiriira sida dalkaasi Shiinaha uu xakameeyay cudurkaasi. marsii horeysayna warbixin Lancet lagu daabacay ayaa lagu sheegay in dalkaasi Shiinaha uu bilowgii horeba shaacin lahaa 4 jibaar tirada dadka uu cudurkaasi ku dhacay. waa haddii dalkaasi uu cudurkan u arki lahaa sida uu haatan u arko. warkii caalamkana waa naga intaa idinku wareejiyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbil iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay xasan geelo oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC-da. dhageystayaal u diyaar garooba idaacaddeenii dunida iyo maanta oo fidsan. aynu ku bilownay waxaa maanta Nairobi lagu saxiixay heshiis dhex maray dowlad goboleedka Jubbaland iyo golaha isbedel doonka ee isla Jubbaland oo muddo dheer isku khilaafsanaa doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August ee sanadkii tagay ee 2019. doorashadaas ayaa khilaaf xoogan keentay taasoo xitaa ay dowladda federaalku diiday inay ba aqoonsato. wadahadalla Nairobi ka socday muddo dheer ayaa maanta soo afjarmay khilaafkii u dhaxeeyay in halka ku joojiyay mas'uuliyiintii isku hayay mansabka xilka u sareeya Jubbaland. cabdirasaaq xaaji catoosh ayaa soo akhriyay xogtii u dambeysay ee lagu heshiiyey. cabdirasaaq cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay. qoraal 3 bog ka kooban ayay soo saareen labadii dhinac ee maanta heshiiska Nairobi ku saxiixay. qodobada ay ku heshiiyeenna waxa ay ku soo koobeen ilaa 7 qodob, balse haddii 3 qodob ee ugu muhiimsan cabdiraxmaanow aan dadka u bidhaamino. qodobka koowaad waxaa lagu yidhi golaha isbedel doonka Jubbaland iyagoo tixgelinaya duruufaha adag ee Jubbaland ku sugan tahay una tanaasulaya danta shacabka waxay si buuxda u taageereen doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee sanadkii tagay ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Sheekh Maxamed Islaan. qodob kale oo isna muhiim ah oo ku jira ayaa cabdiraxmaanow wuxuu oranayaa in madaxweynaha Jubbaland uu soo dhisayo xukuumad wadaag ah oo tayo leh oo ay qayb ka yihiin golahan isbedel doonka ee maanta heshiiska la gaaray madaxweynaha Jubbaland. qodobka 7 isna wuxuu dowladda federaalka ugu baaqayaa in la soo afjaro khilaafkii muddada soo jiitamayay ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ka dhaxeeyay dowladda dhexe federaalka. cabdirasaaq marka laga tago in la heshiiyey ma jirtaa cid gaar oo hawshan ka soo shaqaysay oo dabcan intii heshiiskaas qayb ka ahay? cabdiraxmaan sidaad bilowgii hordhacba ku sheegtay muddoba halkan la fadhiyey wadahadallada Kismaayo ka soo bilowdeen dhowr biloodna labada dhinacba waxa ku dhex jiray siyaasiyiin reer Kenya iyo reer Jubbaland u badan, balse hadda waxaa qoraalkan loogu mahadceliyay dowladda Kenya oo la yiri si gaar ah ayay ugu mahadsan tahay fududeynta howlahan. balse sida anaga aan la soconno dhinacyo kala duwan yaa hawshan isu keenida labada dhinac ee Jubbaland isku hayay muddo dheerba ku jiray.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxau ahaa cabdirasaaq xaaji catoosh oo inala socodsiinayay xogtii u dambeysay heshiiska maanta nairobi ka dhacay ee ay ku heshiiyeen dhinacyadii isku hayay siyaasadda jubbaland. bal haddaba heshiiskaas waxaa ka hirgeli kara iyo guud ahaanba waxa laga fili karo ayaanu la falanqaynay mid ka mid a falanqeeyaasha b b c da ee arrimaha soomaaliya ambasador ciid bedel ahna siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka ka soo jeeda jubbaland. heshiiskan wuxuu ka dhigan yahay waa heshiis taariikha wuxuuna ka dhigan yahay in jubbaland ay ugu dambays ka dhacday nabad loogu waaro oo u horseeda isbeddel dhaba oo ka dhaca jubbaland iyo soomaaliya inteeda kale. waxay ka dhigan tahay inay jubbaland u bislaatay xagga dib u heshiisiinta. jubbaland waxaa lagu dhishay heshiis hore oo xoogii isku haystay lagu saxeexay magaalada addis ababa, heshiiskaasoo midho dhalay. maantana mar labaad jubbaland waxay saxiixday heshiis iyada iyo isbeddel doonka ah. taas waxay ka dhigan tahay jubbaland inay had iyo jeer ku dadaasho hadduu khilaaf dhaco in heshiis loo dhan yahay, lagu kalsoon yahay, horumar iyo barwaaqo u horseeda jubbaland inay had iyo jeer ku tallaabsato. taasna heshiiskana waa heshiiskii labaad ee taariikhda galay marka loo eego maamul goboleedka jubbaland. heshiiska ay soo saareen waxaa ku jirta inay dowladda federaalka ugu baaqayaan inay la heshiiyaan jubbaland. waxaynu ognahay in xertan heshiisay laba ka mida lagu eedeynayay in dhanka dowladda federaalka ay ka socdaan. haddiiba ay imika iyagoo midaysan ay ku baaqayaan in la heshiiyo, taa lafteedu soo kama dhignaa inuu soo dhowaaday xalka khilaafkii u dhexeeyay jubbaland iyo dowladda federaalka. way u muuqan kartaa, laakiin waxaan rabnaa inaan kuu sheegno haddaan dadka jubbaland siyaasiyiinta waxgaradka iyo dadka soomaaliyeed maadaama khilaafaadkii gudaha ka jiray ee musharaxiintii isbeddel doonku ay maanta heshiis qaateen. sidoo kalena waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali kheyre in wadahadal dhab ah oo daacada oo soomaalinimo ah oo isu tanaasula inay la galaan jubbaland waa laga maarmaan. danta soomaaliyeed way ka weyn tahay waxyaabo yar yar oo laysku qabsado. ummaddu way isqabataa, waa la is afgaran waayaa, waa la dagaalamaa. laakiin madaxweynuhu maxamed farmaajo iyo kheyre waa madaxdii dalka ugu sarreysay. jubbalandna way aqoonsan tahay. siyaasiyiintii waxgaradka haddaan nahan waxaan ugu baaqaynaa inay jidkii isbeddel doonka raacaan oo la heshiiyaan maamulka jubbaland iyo madaxweynaha la doortay ee jubbaland maxamed axmed islaam. waa laga maarmaan marka anaga oo ah inaan u dirayno madaxda soomaaliyeed inay jidkii isbeddel doonka kala raacaan oo wadahadal iyo isu tanaasul ay qayb ka noqdaan. ambasador bedel haddii la heshiiyey, bal tallaabadan maxaa xigi karaa? waxaa xigi karaa tallaabo in la xoreeyo dhulkii ka maqnaa jubbaland oo isbeddel doonkuna ay hormood ka noqonayaan la dagaalanka argagixisada jubbaland qabsatay. ciidankii iyo maamulkii iyo dowlad loo dhan yahayna la dhisi doono iyagoo laysku midaysan yahay macal aan rajaynayno beesha caalamka iyo dowladda federaalka inaan hadda culays saarno la dagaalanka argagixisada iyo dhulkan soomaaliyeed ee argagixisadu haysato ee laga soo abaabulayo qaraxyada shacabka soomaaliyeed ee xamar lagu leynayo iyagoo madaxda ugu sarreysa alqaacida iyo al-shabaabba ay jubbaland gudaheeda deegaankooda ku sugan yihiin in la iska kaashan lahaa inaan badbaadino dadkii soomaaliyeed xamar lagu xasuuqayo maadaama deegaanada jubbaland ku yaala oo dhul xidh ah ay shabaabku madaxdooda ku jiraan kana soo abaabulaan. waxaan ugu baaqaynaa marka si aan u badbaadino shacabka jubbaland iyo shacabkii caasimadda soomaaliya fadhiyada in la iska kaashado sidii loo xoreyn lahaa loona dagaalan lahaa cadowga jubbaland. taasaa laga maarmaana marka madaxweyne maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre inay hadda culayska saaraan oo ummadda ay mideeyaan, hogaamiyaan, heshiisiin dhabana ay dhacdo. ambasador bal adiga shaksi ahaan intee in legbad heshiiskan ku niyadsan tahay haddaad tihiin siyaasiyiintii iyo waxgaradkii deegaankaas? waan ku 100% waan ku wanagsanahay. nimankan waa niman siyaasiyiin oo jubbaland kasoo jeeda una dhashay, waana ehel. waxaana ugu mahadinayaa inayna wax khilaafaad oo dhiig ku daata ayn meesha ka samaynin. waxaan aad kale ugu weynahay madaxweyne maxamed farmaajo iyo ra-iisul kheyre inay jidkooda raaci doonaan. heshiiskan wuxuu la mid yahay heshiisyadii ka horreeyey jubbaland had iyo jeer khilaaf markuu dhaco waxaan raadinaa jid nabadeed oo wadahadal lagu geli karo oo khilaaf lagu xaliyo. marka 100% waa ku haweenaa heshiiskan. waxaan rajaynayaa madaxweyne farmaajo iyo kheyrana inay jidka raaci doonaan. kaas waxau ahaa ambasador ciid bedel oo ii warramayey isla mar ahaantaanayna la falanqaynayay heshiis ay maanta ku saxeexdeen nairobi qaar ka mida dhinacyadii isku hayay siyaasadda jubbaland. haatanna somalilan ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojinayso qaadkii soo geli jiray degaankeeda laga bilaabo maalinta axadda. sidoo kalena waxay maanta ku dhawaaqeen kiisas cusub oo coronavirus ah. waa 13 kiis oo cusub iyadoo tirada guud ay noqonayso 19. cabdulaahi jaamac ayaa inoo haya xogtii u dambeysay.
guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee somalilan ayaa maanta fadhi ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada somalilan waxay kaga dhawaaqeen somalilan laga joojiyey qaadka ka yimaada waddanka etoobiya iyada oo ay sababtuna tahay baqdinta laga qabo in xanuunka coronavirus uu ku baaha somalilan joojinta qaadka ayaa waxa ay ka bilaamaysaa sida guddigu sheegay maalinta axadda ah ee bishani tahay 26 abriil waxayna ku eg tahay 2 cisho ka hor maalinta ciidda soonfureed madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo guddigan isagu guddoomiye ka ah ayaa go'aankaasi ku dhawaaqay qaadkii ganacsigiisii muddo 5 maalmooda oo ka bilaabanta maalinta axadda oo bishu tahay 26 ilaa 21 bisha shanaad oo ah 2 cisho ka hor ciidda muddo 5 maalmooda inaanan jaad somalilan laga ganacsan lana keeni karin ayaan isla qaadan runtii waxaan markaa leenahay dhammaan maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga somalilan ka shaqeeya laga bilaabo maalinta axadda in lagu arko inay jaad ganacsi soo gelinayso ama jaad soo gelinayso noocu doono ahaadee dalka soo gelinayso waxaad ku amran yihiin ama la farayaa in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qarniyo la wareegaan jaadkana maalintaa laga bilaabay in la gubo oo aan dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin sharciga la horgeyn doonaa joojinta qaadka ee somalilan ayaa waxaa la tilmaamay inay tahay markii ugu horraysay ee muddo ku dhow 30 sanno somalilan go'aankan oo kale ay qaadka ka qaadato dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ee haatan laga baqa qabo inuu ku fido coronavirus somalilan ayaa dad badani waxay hore u soo jeedin jireen in qaadka lagu daro oo la joojiyo waxaase muuqata in qaadka joojintiisu ay tahay mid kumeel gaadh ah oo muddo 25 cisho ah uu dalka ka maqnaan doono iyadoo dadka qaarna tilmaamayaan in maadaama bisha rabadaan inta badan dadku maalintii sooman yihiin qaadka habeenkii inta cuntaana ay aad u yaraan jirtay in lagu beegay joojintiisa cabdilaahi jaamac b b c hargeysa aad buu mahadsan cabdilaahi jaamac oo warbixintaasi nala socodsiinayay ee dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan waa b b c xilli goorsheegtu tahay 5:17 daqiiqo b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatanna tan iyo markii fayraska corona dunida ku baahay waxa uu aad u saameeyay dhaqaalaha dunida Soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka dunida ugu dhaqaalaha yar dadkeeduna ay halista ugu jiraan burburka dhaqaale ee ka dhalan kara fayraskan waxaana muddooyinkii u dambeeyey aad uga dayrinayay xaaladda dalkaasi hay'adaha gargaarka haddaba maxaa Soomaaliya uga qorshaa xaaladdaas sidee ayuuse hadda u saameeyey iyo su'aalo kale ayaa madaxa laanta af Soomaaliga b b c Muxyidiin Axmed Rooble uu hordhigay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle saameyn weyn buu iyo Soomaaliya ku yeeshay sida wadanada kaleba marka u horeysa dadkii baa la kala joojiyay dadkii baa qalada lagu xiray sida daraadeed wax soo saarkii baa hoos u dhacaya sida daraadeed dadka dakhligii soo galay baa hoos u dhacaya dadkii maxaysatada ahaa maalin walba meel intay tagaan dollar soo qaadanayay dollarkoodii uu dhamaanaya ama wax soo helayay marka annaguna kuwaasaan wax yar ku lahayn cashuure yaryar wixii way dhamaadeen alaabihii dibadda laga soo qaaday baa iska yaraanaya marka dakhligii ka soo galayay airportka iyo portka airportkii waa la xiray wixii ka imanayay wixii ka soconayay marka waxyaalo badan ilaa 40% baa iska kaaya dhimaya marka dhibaatadaas ayuu keenay waxa kale uu keenay waxa weeye cudurka la dagaalankiisii waa isaguna wuxuu u baahan yahay in kharash la helo alaab lagu soo iibiyo dadka lagu daweeyo meel ay seexdaan jiifsadaan loo helo dawooyin loo helo mishiinadan dadka neefta ka soo qaadan la helo marka really waxa weeyaan waqti xun buu noo yimi cudur oo dhan xun yahay waayaha wasiir marka tirada 40% haddaynu lacag caadiya u bedelnahay waa dhaqaale intee leeg ilaa 200 milyan baan isniri ilaa 200 milyan meelaha marka waddanka oo dhan la eego federal governmentka ilaa 100 iyo waxoogaa 120 meelaha inta kale marka qiyaastii ilaa 200 meelaha way gaaraysaa marka howlihii airportka markii laga soo tago howlihii degedda ma waxba iska bedelay soo agabkii weli ma yimaado soo shaqadii weli ma socoto soo lacag halkaa weli idinkama soo gasho agabkii weli wax badan iskama dhimin laakiin haddana kolley mar haddii dadka la kala xidho mar haddii socod ku yaraado dekeda wax waliba dib bay u dhacayaan waxaa kaloo ku jira dad badan oo waxa iska jira kolleyba ka faa'iidaystaan normally dhibaata markay dhacdo alaabta u yarkaadi iyo balyar qari iyo balyar hay iyo waxa sidaasoo kale jirta weli waa lala qabsan
eeraboorka lacag intee leeg baa idinka soo geli jirtay wasiir airportka waxaa naga soo geli jirtay bishiiba ilaa 2 milyan iyo waxoogaa baa naga soo geli 2 milyan iyo 500 baa naga soo geli jirtay meelahaas marka maadaama wasiir dhaqaalihii dowladda ee gudaha 40% hoos u dhacay oo kala bar ku dhow sidee doonaysaan inaad shaqadii dowladda aad u sii wadaan waxa weeye adduunyadu way isku wada xidhan tahay marka hore dhaqaalaha iyaga waxaa ku jiray kabba wuxuu baahnaa kabka markaa waan soo yaraynaynay markii hore waan soo yaraynay waxaan doonaynaa anagu inaan isku filaano laakiin haatan kabkii baa sii batay markaa international communityga beesha caalamka ayaan wada hadal kula jirnaa ugu horeeyo world banka adduunku iyo IMF-ta iyo African Development Bank iyo other institutions EU-da ku jirto kuwaasaan doonaynaa inaan kabka ka kordhino oo aan kulleyba wixii loo baahnaa daruuriya in la bixiyo in halka laga helo marka wasiir inaad kab weydiisataan baankii adduunka iyo deeqbixiyayaashu saameyn ma ku yeelanaysaan dadaalkii deen cafinta iyo hooshii deen cafinta ee socotay maya in fact waa xagga kaleba leanna waxa weeye waxaasoo dhan maanta maannaan weydiisan kareen lanoomana soo jeesteen haddaan deynta cafinteeda shaqadii laga qabtay aan la qaban taasi waa waxay fasaxday in adduunyadu in soomaaliya ay maanta ay kalsooni ku qabto ay aaminsan tahay in waxay soomaalidu sheegaysaa dhab yahay in figureska la sheegaya ay dhab yihiin iyo arqaamta laga hadlayaa in markaa lagu kalsoonaan karaba bay keentayba markaa really way sii wanaajisay waxay taa ka taraysaa ma jirto waxaa adduunkaba ka dhacay baa annagana nagu dhacay wax saamayn oo ay ku leedahay taa ma jirto wasiir marka dowladdii dakhligeediina waa kaa hoos u dhacay dabcan shirkadihii ganacsiga iyo howlihii ganacsiga guud iyo dhaqaalihii guud ee waddankana hoos bay u dhaceen sidee u caawinaysaan ama aad wax ugu tari karaysaan shirkadaha iyo xarumaha ganacsiga ee karoonuhu uu saameeyey xawaaladuhu ka mid yihiin oo dakhligoodii hoos u dhacay aad iyo aad baa ayaa looga hadlay arrintaa shirba waxaa jira guddi sare oo ra'iisul wasaaruhu madax ka yahay oo habeen walba shira oo businessmenku ku jiraan oo wadaadada mushaaq jirto dawladdu ku jirto wasiirro fara badan ku jiraan oo habeen walba laga hadla arrinta iyada wasiir dowladda iyo wasaaradda maaliyaddu awood ma u leeyihiin in dhaqaale kab ay u sameeyaan shirkadaha ganacsi ee waddanka ee karoonuhu uu sameeyey dakhligoogii hoos u dhacay dowladdu waxay leedahay gaargaara waa kudii dowladdu establish garaysay institutionka la yidhaahdo kaa laftiisu lacaga milyanisa bay hayaan oo ay doonayaan inay siiyaan businesseska yaryar ay siiyaan waa institution dhan weeyaan oo gargaara la yidhaahdo ganacsiyada yaryar baa loogu talagalay sidaas baad ula jeedaa yaryar bay ayay wax siinayaan wixii intaa ka weyn waxay noqonaysaa waxa weeyaan dadaalkeedu ku jiraa wasiir canshuurdhaaf baad u samayseen raashinka iyo agabka dibadda laga keenayey maxaa markaa canshuurdhaafkaad aad uga reebteen dalagyada gudaha ee beeraha iyo raashinka gudaha ka soo go'a raashinka gudaha ka soo baxa runtii cashuur badan ma saara raashinka gudaha ka soo baxa marka horeba wax yar baa saaran kan kale cuntadeena haddaad aragto Soomaalida aqal bariis baa lagu cunaa iyo bariis iyo bur ayaa lagu cunaa marka imika emergency-gu wuxuu nafarayaa waxa weeyaan waxa dadku cunayaan inaan waxba ku beerin waaya wasiir waxaa jiray dowladdu inay ballanqaaday in lacago 1 milyan dowlad goboleedyada la siin doono si ay ugu kabaan dhaqaalaha uga baxaya dadaalka iyo kahortagga iyo daweynta cudurka koroonaha Puntland iyo Jubbaland waa soo qeylinayaan waxay leeyihiin lacagtii weli maynaan helin goorma lacagahaas bixinaysaan si general aan kugu sheego lacagahaas waxa weeyaan lacaga loogu talagalay in lagaga hortago xanuunkan laakiin de lacagtu waxay u baahan tahay maamul bay u baahan tahay management iyo conditions bay leedahay maaragta shuruuday leedahay marka shuruudda ciddii soo gudbisay waa loo diray kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo u warramayay madaxa laanta af Soomaaliga ee BBC Muxyidiin Axmed Roble haatanna 2 nin oo lagu eedeeyay in dambiye ka dhana bini'aadantinimada ay ka geysteen Suuriya ayaa waxaa dacwadoodu ka bilaabatay dalka Jarmalka 2 nin ayaa la aaminsan yahay inay u shaqeynayeen dowladda Suuriya isla markaana waxaa loo haystaa dambiye la xiriira jirdil oo u geystay nidaamka madaxweyne Bashar al-Assad arrintan ayaa ah markii ugu horeysay ee dunida ee maamulkaas cid ka soo jeeda loo soo taagay maxkamad dambiye noocana Faarax Lamaane ayaa xogtaasi inoo haya 2 nin ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Anwar R iyo Iyad A waxaana lagu eedeeyey inay la shaqeeyaan sirdoonka dowladda waxaana ay ka soo carareen Suuriya markii uu dagaalka sokeeyay halkii ugu sarreysay marayay
ayagoo jarmalka magangelyo weydiistay halkaasoo lagu xiray 2019. qareennada u doodaya labada nin waxa ay ka gaabsadeen inay warfidiyeenka la hadlaan ka hor intii uusan kiiska ka furmin Koblenz khamiista maanta ah. madaxweyne Asad iyo xukuumaddiisa ayaa si isdabajooga waxay u beeniyeen isticmaalka jirdilka. hase yeeshee warbixinta uu soo saaray khabiirka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay sanadkii 2018 ayaa waxa ay sheegaysaa in xukuumaddu ay xirxirtay 10,000 oo qof oo ay u geysatay noocyo kala duwan oo jirdil foolxun ah. maamulayaasha jarmalku waxa ay baaritaan ku hayaan ilaa iyo 10 saraakiil Suuriyaan ah kuwaasoo shuruucda caalamiga ah ay u oggolaanayaan in la maxkamadeeyo kuwa lagu helo dembiyo dagaal, dembiyo ka dhana bini'aadminimada iyo xasuuq. ururka qareennada jarmalka ayaa isna waxa uu sheegayaa inay jiraan kiisas baaritaanadooda ay ka soconayaan Ciraaq, Liibiya, Afghanistaan, Maali iyo dalal kale. labada nin ee iminka la haysto ayaa waxaa lagu eedeeyey inay u shaqaynayeen hay-adda sirdoonka ee la yidhaahdo GID oo ah hay-adda sirdoonka rayidka ee ugu awoodda badan Suuriya, waxaana loo haystaa in ay kaalin weyn ka cayaarayeen sidii loo caburin lahaa cabasho nabdoon oo ka dhan ahayd madaxweyne Asad bishii Maarso 2011. caddaymaha ugu muhiimsan ee lagu hayo labada nin ayaa waxa ay yihiin 10,000 oo sawir oo uu qaaday nin u shaqayn jiray militariga kaasoo Suuriya ka soo cararay 2013. haddii dembiyada lagu helana labada nin midkood waxa uu mutaysan karaa xabsi daa'in halka kan kalena lagu xukumi karo ilaa iyo 15 sano xabsi ah. aad buu mahadsan yahay Faarax Lamaane oo warbixintaasiina la socodsiinaya. haatanna waxaa soo dhacay xogtii ugu dambeysay ee coronavirus ee Soomaaliya oo maalin walba hadahan oo kale ay dawladdu la wadaagto warbaahinta. xasan sheekh cumar ayaa inoo haya xogtii ugu dambeysay. xasan cabdiraxmaan waad mahadsan tahay. wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Dr. Fawsiyo oo haatanba la hadlaysa warbaahinta ayaa waxay ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka COVID-19 ee dalka Soomaaliya iyo qaabka ay dowladdu arrintaasi ula tacaalayso. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa soo korortay sida ay wasiiraddu sheegtay 41 xaaladood. 31 ka mida dadkaasi waa lab sida ay sheegtay wasiiraddu, 10 ka midana waa dhadig. hal mid oo ka mida dadkaasi waxaa laga helay ama uu ku sugan yahay Gaalkacyo ee gobolka Mudug. 2 waa ay dhimatay sida ay sheegtay, 2 waa ay ka caafimaaday. tirada guud waxa ay ku sheegtay guud ahaan cudurka dalka Soomaaliya in uu marayo hadda 328. dhimashada guud ahaan waa 16 xaaladood, inta bogsatayna waa 8 qof. wasiiraddu waxa ay sheegtay in weli ay taagan tahay xaaladda ah in dadku ay u dhaganuglaadaan dabcan wararka ka imaanaya laamaha caafimaadka ee ku aadan in dadku ay qaataan wacyigelinta islamarkaana ay ka digtoonaadaan xanuunkan iyo khatarta uu leeyahay. gudiyada u xilsaarana warkooda la maqlo. wasiiraddu sidoo kale waxa ay ugu baaqday dhammaan deegaanada iyo maamulada in arrintan loo istaago oo xanuunku weli uu yahay khatar taagan islamarkaana loo baahan yahay in laga hortago. aad buu mahadsan yahay xasan sheekh cumar oo nala socodsiinaya xogtii ugu dambeysay coronavirus ee Soomaaliya. dhageystayaal weli halkaad nagala socotaan waa BBC. haatanna tallaabooyinka maamulka magaalada Mandheera oo ku xakamaynayo faafitaanka fayraska corona oo ah in magaaladaas xayiraad la geliyo kadib markii ay kordheen kiisaska COVID-19 ayaa waxay arrintaasi saameyn ku yeelatay dadka deegaanka. dadka saameyntaas dareemaya waxaa ka mid ah gaadiidleyda ku shaqaysta gawaadhida iyadoo ay hadda ku baaqayaanba in la khafiifiyo xayiraadda lagu soo rogay Mandheera. Cali Nuur oo ah gudoomiyaha gaadiidleydaas Mandheera ayaa goor sii horeysay ii warramay. arrintan saameyn badan bay nagu yeelatay. saameynta waxaa ka mid ah inta hadda shalay wasiirka uu caafimaadka uu ku dhawaaqeen gobolka arrintiisa uu ku dhawaaqeen ka hor arrin baana la soo gudboonaatay. arrinta ninka oo barasaabka gobolka maalin wuxuu ka hadlay, wuxuu yidhi subcounty lasuma gudbi karo. baabuurta waxay isku jiraan baabuur BL ka shaqeyso dad qaado, kuwa engero sidayd oo kale oo gobollo isu gooyo engera jiro, kuwa taksiyaalaha jiro, kuwa tubliya jirto. marka waxaa la yidhi kuwii bajaajkana waxaa la yidhi hal qof ka badan ma qaadi karaan. kuwii kale oo taksiyaalkana waxaa la yidhi 2 qof ka badan hal qof gaari hal qof ka badan qaadi kara ma laha la yidhi. ayadoo awal dhib lagu qabay baabuurtii oo subcounty aadayna meelaha aaday magaalooyin aadayna ragii waa laga istaajiyey. ayagoo arrintii ay taagan tahay ayaa hadda shalay wasiirku ku dhawaaqay, wuxuu yidhi Mandheera County wax geli karaba iyo wax ka bixi karana madna ma laha. marka in wasiirku yidhi Mandheera County cid geli karta male oo dabcan looga jeedo fiditaanka fayrasku inaanu dadka ku sii baahin, idinku maxaa ka cabanaysaan bal markaad hadalka soo ururiso?
annaga waxaan ka cabaynaynaa hadda nin waxaa jira oo hooyadiis ku dhimatay meeshan oo jooga shalay oo kale wajeer joogay oo Mandheera usoo socdaa jira hooyadiis dhimatay taasi u socday ma soo geli karo haddii la dhaho marka arrintaas dhib ay leedahay qofka dan uu yeelan karaa wax kasta la gudboon karo dadka aan qaadayno dadka dan ay leeyihiin dantooda dadka inaan u oofino annagana aan ku danaysano ayaan rabnay haddii markii la yidhaha wax dhaqaaqaya ma laha dhibkaan adduun weynaha dhan uu ka dhacay adduun weynaha dhan hadduu ka dhacay meel hadda saas xayiraad badan loogu soo rogay ma jirto anaga marka dawladdu waan ka codsanaynaa in ay arrintaas ay saas noogu sii adkaynin arrinta noo qafiifiyaan cudurkana waa ka taxadiraynaa sidaa aad sheegtay adduunweynahoo dhan buu ku dhacay adduunweynahoo dhanna badankiisu wuxuu soo rogay in safarkii la yareeyo marka idinka Mandheera in safarkeeda la yareeyo oo dadka loo daneeyo cabashadiinani maxay la gaar tahay county meel kale in la aadi karo marka sub county governor uu ku dhawaaqay meel kale iska taagan tahay baabuurtii ay bixi waayeen oo baabuurtii taksiyaalkiina hal qof ka badan ma qaadi karaan ay arrinta ay taagneed oo ay dhib lagu haysay ayaa hadda midda wasiirka ay nala soo gudmaadeen marka wasiir arrinta waxaan ku codsanaynaa wixii daruuro ah oo dhib ah oo nala soo gudboonaada marka inaan loo fasaxno aan dawladda ka codsan lahayn laakiin soo xaaladiisu bedelno ma aha inaad ku baraarugsanataan in xaaladii isbedeshay oo aan sidii hore wax u soconayn idinka laftiin waa ognahay arrinta caafimaadka arrintaas waa la soconaa anaga wixii caafimaad ah wax dhib oo aniga aan saas oo aan leeyahay aan ku taagsanayo ma laha laakiin haddii shacabka waddankana hadda week aan soo dhaafnay oo kale arrintan oo gobernatoraha uu ku dhawaaqay uu dhahay sub county kan hadda wuxuu yidhi countiga lama geli karo lagamana bixi karo baabuurtii Mandheera county isaga gooshaysay ayaaba la istaajiyey meel kale iskala taagan oo baabuurtii dhibayso ayadoo tii jirtay tan hadda ninkan abroon oo hadda ninkan uu leeyahay Mandheera county gaari soo gaari kar mala kamana bixi kara uu dhahay waa laruro waxaan codsanaynaa in arrintana loo khafiifiyo oo aniga wixii dana aan gudano kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur oo ah gudoomiyaha gaadiidleyda Mandheera oo goor sii horeysay ii waramayay